guddiga dhinaca isgaarsiinta ee dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay abuurista database la wadaagayo oo ah aqoonsiga telefoonada mobilada si loola dagaalamo xatooyada iyo in aan dib looga shaqaysiin aaladaha la xado ama luma. Telefoonada mobilada ayaa lagu qaataa in ka badan kala bar falalka burcadnimada ee magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka ka dhaca, dad badan ayaana ku dhaawacma oo xitaa qaarna ku dhintaan iyagoo isku dhajinaya. shirkadaha taageeraya talaabadan ayaa ballan qaaday inay joojinayaan dib u habaynta aaladahan marka ay lumaan ama la xado, halka sharci cusub uu ka dhigayo dembi in la farageliyo aqoonsiyada. shirkadda Apple ayaa ku dhawaaqday in ay ka shaqaynayaan tool baabi'in doona flashback Trojan. barnaamijkan oo ku kooban kombiyuutarada Mac oo kaliya waxa uu soo saarayaa u nuglaanshaha barnaamijyada luqadda ee Java. flashbackan oo soo saara kombiyuutarada inay maamulaan dadka u soo dhaca ayaa la sheegay in uu saameeyay in ka badan nus milyan kombiyuutarada Mac. shirkadda ayaa horeba u soo saartay barnaamij ay uga hortagayso. dadka soo saaray Nintendo ayaa waxay u suurta gashay in ay sameeyaan hage dhagaysi oo mid ka mid ah madaxafyada ugu waaweyn adduunka iyagoo markaasi isticmaalaya konsolkooda 3DS. injineerada isticmaalay qaar ka mid ah konsolada 3D ee muuqaalka iyo animationka ayaa sheegay inuu ka caawinaya dadka soo booqda madaxafkaasi in ay dhex socdaan iyagoo dhagaysanaya in ka badan 700 oo codad duuban oo faallooyin ah oo waxa yaala halkaasi ku saabsan. sida ay sheegtay Nintendo, hagahan waxa uu dadka ka caawinayaa inay ogaadaan wax badan oo madaxafkaasi yaala. shirkadda Japaanka ee Panasonic ayaa bilowday inay tijaabiso robot dadka timaha loo jaraya ama loo xiro shampoo u marinaya magaalada la yiraahdo Nishinomiya ee galbeedka dalka. robotkan ayaa marka hore waxa uu si taxadar gacmihiisa u marinaya madaxa qofka iyo qaabka uu u eg yahay, kadibna waa uu qoynayaa oo markaasi uu mayraya timaha isagoo isticmaalaya 24 farood. shirkadda ayaa waxay damacsan tahay inay robotkani ku rakibto dukaamada timaha lagu qurxiyo ee waddankaasi oo dhan ku yaala sida ugu dhaqsaha badan.